dadku waa isla hal dadkuna maaragtay deegaankan ayaa ka dhaxeeyo deegaanka haddii uu ka dhaxeeyo waxaan rabnaa ganacsiga yimid iyo dhulku qiimaha uu yeeshay dadku inay si aqliyan iyo si degan ay dadku maaragtay u wajahaan ganacsatada waxaan ka rabnaa iyo dadka gooflayaasha waxaan ka rabnaa inay ayagana tixgeliyaan maamulada qof waliba goofkeeda meesha uu ku yaalo degmada uu ka tirsan yahay inay kala timaado dukumiinti caddeeyay inay maaragtay dhulkeeda in looga shaqeeyo cadiya oo wadax ah degmada markaa ku xadgudubto ee ku qabsato waxay haysataa dukumiintiga degmadaas ay bixisay ama dukumiintiga gobolka uu bixiyay gobolka kale kuma xadgudbi kari degmada kalena kuma xadgudbi karto waxaan rabnaa marka inay dukumiintiga ka soo jartaan degmada ay hoos tagaan gooflahaas uu leeyahay goofkiisa degmada uu hoos tago wuu yaqaanaa kama qarsoono inuu dukumiintigiisa la yimaado asoo dukumiintigiisa haddii qofkii dhibaato uga timaado degmada kaleento wada loo maray leeda iyo meel maarta looga hortago waxaa maanta soo gabagabaynay howlo nabadeed oo baryahan ka socday deegaano badan oo hoos taga degmada Balcad sida deegaanka Lebiga Xaanshuuley Fidadiir Warcadyo iyo Carab Daran deegaanadaas dhammaan waa deegaano hoos taga degmada Balcad maanta waxaa ka dhacday shaqaaqa yar oo isku dhac yara ayadana waa soo gabagabayna si sharaf iyo karaamo iyo walaaltinimo leh ay ku dhamaatay waxaan rabaa ummadda Soomaaliyeed dal iyo dibad meel walba ay joogtaba inaan u sheego shaqaaqadii ka jirtay deegaankan 5 bilood ee yareed wax fudud ay ahayd alxamdulillah biriga inay dhamaatay halkan madaxdaynin ugu soo booqatay isfaham daradii ku jirtay dhaxdaynina ay maanta halkan ugu soo gabagabeeyay halkani waa Hirshabeelle TV